gelin waxaan rabaa inaan taabto dhowr arrimood oo aan isleeyahay waa muhiim oo ay ugu horeysay tan saaxiibkay tarsan uu ka wareejay ka dhawaajiyo oo ahayd cadaalad darro iyo burburkii dawladdii Soomaaliya sagaashamaadkii ana waxaan qabaa horta cadaalad marka la yiraahdo cadaaladda qofba si uu yaqaan ama group waliba si uu yaqaan ama siyaabo kala duwan baa loo yaqaan cadaaladda horta u baahan in la qeexo waxa cadaalad la yiraahdo maxay tahay ana waxaan aaminsanahay 1990 dawladdeena wixii burburiyay loo burburiyay waxay ahayd khaladaad la galay ee ma ahayn cadaalad darro ay dawladdu samayso waa dhici karta dawlad iyo nidaamka soo meel jira khaladaad baa ka dhacay waxyaabaha dhacay khaldan laakiin dawladdii cadaalad darro samaysay oo sidaas loo burburiyay macna ma lahayn waxay ahayd nidaam ka duwan kaasaan isleeyahay sababta loo burburiyay marka cadaaladii bay ka leexatay dawladdu cadaaladii siyaabo kala duwan horta loo yaqaan taa marka laga tago waxaan dhihi lahaa arrinta ku saabsan dawladaha dariska iyo roolka ay ku leeyihiin Soomaaliya dawladaha dariska waa dawlado runtii Soomaaliya hadda door aad muhiim ah u leh ku leh hadday tahay ciidamada AMISOM iyo hadday tahay siyaasadda iyo hadday tahay amniga naga dhaxeeya iyo hawlo fara badan doorkoodu inuu koobnaado waa lagama maarmaan laakiin haddana baahida aan u qabno ayaa keenaysa iyo danaha naga dhaxeeya oo amnigu la barkoobkaya marka aniga waxaan qabaa dawladaha darisku door fiican bay ku leeyihiin Soomaaliya waana u mahadcelinayaa doorka ay ka qaateen wixii intaa ka badanna waa waxyaabo internal oo la rabo in si gaar ah looga wada hadlo marka dawladaha dariska roolkoodu waa muhiim waana u mahadcelinaynaa ilaa hadda doorka ay ka qaateen dhinaca amniga iyo horumarinta meelaha qaarkood oo iyaga daris la inta marka laga tago gudoomiyaha gobolku arrinta uu sheegay oo ahayd marka arrin laga shaqeynaya in qabiilka laga fogaado waa sax qabiilku Soomaaliya mushkilad badan buu ku yahay laakiin waxaan xasuusinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir buu ahaa dabcan markuu gudoomiyaha ahaana mar badan waxa lagu tuhmayay inuu si qabiil u shaqeynayo oo si aad waliba loogu tuhmayo marka waxaan ku faraxsanahay inaan ka faa'iideysano waayo aragnimadaada qofku markuu xilka hayo khaladaadku uu soo galay inuu marka dambe dadku uga faa'iideeyo marka waa qaadanayna 10 ay noqonaysaa waa ka baranayna inaad halka ka leexato arrinta ku saabsan xeer jajabka iyo khasaaraha laga gaaro wasiir goodaxa wasiirka hore arrimaha gudaha iyo federaalka oo isagu runaantii ragii khasaarahaas iyo xeer jajabka ka wardoonay oo ku soo khasaaray asagana waa ka faa'iideysanaynaa khasaarahaas iyo jabka halka ka yimid waana ka faa'iideysanaynaa waana ka fogaanaynaa labadiinaba 10 kaas waa idinka baranay waana ka fogaanaynaa hadii la yiraahdo jubba iyo hubka ka degaya hub runtii hadda ka degaya ma jiro waa gaadiid wax ka degaya laakiin dabcan hub way u baahan tahay waana filayaa inuu iibaan doono macnaheeduna waxa weeye in shabaab lagu la dagaalamo ayna noqdaan ciidamadii qaranka ay ka yimaadaan halkaas dabcan Soomaaliya ciidamo qaran bay u baahan tahay 10 wiil ama 100 wiil ama 200 wiil xamar iyo beledweyne iyo joogta shabeellada dhexe ma aha ciidanka qaranka kaligood ciidanka qaranku wuxuu ka imanayaa gobolada Soomaaliya oo dhan kuwa Jubaland jooga kuwa South West jooga kuwa Puntland jooga kuwa Somaliland jooga kuwa jooga maxaan ku wada Central iyo Hiiraan iyo meelaha kale oo dhan iyo kuwa Banaadir jooga dabcan marka 10 qori iyo 10 baabuur iyo maxaan ku wada wax la mid oo gobol tagay macna ma sameynayso waxa uga hadli weyday kuwa boqolaalka ee ka soo degay dekedda Muqdisho ee xamar la siinay yaa la siinay waa ciidanka qaranka laakiin kuwaasina waa ciidanka qaranka qayb ka mid ah there's no reason marka sabab horta loogu taago la yiraahdo Kismaayo oo ba ka degayo qabiil bu gacanta u galay dabcan kuwa beledweyne ka degayo maxaan ku wada hiil walaal iyo mashaariicda halka ka socdo waa bishid gareynayna waa u mahadcelinayna waa ku taageerayna waxa la siinay Hiiraan waa wiilal Soomaaliyeed wixii sadaan runta ka hadalana inaan bahasha korka ka leexana ma from Somaliland ka soo bilow ilaa iyo raas Kaamboon gobolada Soomaaliya qaab baa loo degay lagu kala badnaado qabaa'ilada Soomaaliya hadda ganaana qaab baa loo degay qaabka loo degay yahay waa nidaam ay geographic u keenay waxa la rabaa markastana dawladii xilliga aad adigu cadaalad darrada ku sheegaysa cadaaladda ayda 90 iyo wixii ka horeeyay waxa weeye hatta ciidanka qaranka markay qorayso haday kun wiil qorayso waxa loo qaybin jiray gobolada iyo degmooyinka dalka oo laga keenay jiray waxaan rabaa marka inaan taas waa baarno oo aan aadno hubka halka ka degaya waa hub qaab lagu la dagaalamayo dabcan qaybta qaranku u baahan yahay uu ka soo qaadanaya hadda hadii la rabo in la soo qaado diyaar bay in la soo qaado oo lagu soo daro maxaan ku wadaada ciidamada qaranka qeexlaan la'aanta iyo inaan shuruuc qeexan oo wax lagu salaynaya ayna jirin
marka nidaamyada ka hor dhismay dawladdan hadda federaalka laga reebo Somaliland iyo Puntland iyo laga reebo mashruuc yar oo degdeg ahaayo Jubbaland ku saabsanaayo Kismaayo ku saabsanaayo oo marka la ordiyay ayaa wuxuu divert gareeyay wixii la qaban lahaa oo dhan labadii sano ee la soo dhaafay wixii la qaban lahaa oo dhammaa oo baarlamaanku qaban lahaa oo xukuumaddu qaban lahayd waxay ku focus gareysay inay waxa soo dhinta meel iska dhigto marka Kismaayo iyo la wajaho iyo hawlka socod which is dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo meel fadhiistay oo tashaday oo la nidaam baan sameynayna 20 30 50 qof oo isgarab ordaysa lama dhig gareyn karayo laakiin haddii inta isu tagta dhahan qofkaas madaxna waa qofkaas si loola hadla la yiraahdo marka waxaan qabaa aniga nidaam dhismaya sidiisaba waa laga maarmaa arrintaadi weydiisay oo ah waan go'nay iyo maanaan go'in waxa weeye dawladda federaalku waa hooyadii qaranka waa ama aabihii qaranka haddii aabihii qaranka iyo hooyadii qaranku ayagu ay mushkilad abuuraan carruurta maxaa laga filaaya waxaa laga filaaya wax ka daran marka haddii inaga xamar iyo baarlamaanka aqalkii house of the people qaranka Soomaaliyeed ay dhibaato ka timaado aan markaa dadkii Soomaaliyeed farax gelinaynin dhibaato ku abuuraysa mushkilad ku noqonaysa wixii ay qabsadeen maaragtay caqabad ku noqonaysa okay Kismaayo waxba laga dhisay maamul baa la dhisay sidee loo dhisay baarlamaan baa la hagaajiyay yaa dhisay odayaal baa dhisay cabasha ka jirta cabasha waa jiraysa in inta loo tago si technical lala fadhiiso leeyahay walaalayaal maxaa khaldan yaa cawanaya xagee wax ka helaysiin see wax loo qabtaa laakiin gacantan taagayno qofka parliamentarianka inuu gacanta taaga macna badan ay ku fadhidaa haddaad negative u taagayso iyo haddaad positive u taagayso iyo haddaad ka aamusayso inaad gacanta taagto macna ku fadhidaa inaad gacanta iska taagto macna ma sameeyno marka taas waxay ku kooban tahay haddii aabaha carruurta uu isagu mushkilad abuuro carruurta waxba lagama filaayo marka haddii aabihii uu isagu dhibaato abuuray carruurta waxa weeye dawladda aad ka tirsantaa qalad that means waxa weeye annaga ayay naga timid sababta shalay toole Puntland iyo Jubbaland iyo South West iyo kulli gacmaha la iswada haysay in hadda la kala qayliyo oo la kala shakiyo oo la kala leexleexdo maxaa keenay wixii halkan ka dhacay baa keenay halkan waxa ka dhacaya waxa la rabaa okay guddoonka baarlamaanka laga bilaabo parliamentarianka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada kulligood in loo fakaro sidee qaranka dani ugu jirtaa sidee mushkiladda jirtana loo xalliyaa xaaladuna aynan Soomaaliya uga darin oo kulligood gacmaha la soo wada haysan marka si widely loo fakara laakiin yaro caadifad yara in laba orda waxay keenaysaa marka in qof waliba yiraahdo okay geedka gaadho